waxaa maanta si rasmi ah magaalada Baydhabo ay ugu bilaabatay dib u celinta barakacyaasha ay abaartu saameysay ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo, kuwaas oo dib loogu celinayo deegaanadii ay markii hore ka soo barakaceen. Hawsha ku aadan dib u ururinta barakacyaasha ayaa waxaa fulinayay guddiga dib u celinta barakacyaasha oo dhowaantan Xarakatu Shabaab Mujaahidiin ay magacowday, waxaana halkaas hadal kooban ka soo jeediyey afhayeenka guddiga dib u celinta barakacyaasha ahna madaxa xafiiska Zakawaadka حركة شباب المجاهدين شيخ سلطان محمد آل محمد. walaalayaal maanta waxaan joognaa Baydhabo waxaana joognaa labada kaam kitaabka la yiraahdo Imaam Shaafici iyo Cabdullaahi ibn Abbaas. taariikhda islaamku waxay tahay maanta 22 bishii Shawaal waana maalin Talaado ah 1432. maanta waxaan ku dhex jiraa maalin waxa aad moodo mataqaanaa muhiimka ay leedahay iyo si ay u weyn tahay iyo wanaaga ka muuqda maalin farxadeed ama maalin ciideed oo kale inay tahay ayaad moodaa maanta maalinta aan dhex joogno. waxaan dhex joognaa dadkii walaalaha ahaa ee ka soo barakacay deegaankii abaaruhu ay ku heleen oo u yimi walaalahooda oo marti ay u ahaayeen oo la joogay halkaana wixii loo helo ay maxay ka helaayeen kana qaadanayeen. maanta dhammaan dadku waxay diyaar u yihiin annagana aan diyaar u nahay inay laabtaan maadaama ay soo beegan tahay dayrtii Ilaahna subxaanahu wa tacaala aan ka baryayno roob inuu Alle subxaanahu wa tacaala u nasiiyo. marka xarakada shabaab mujaahidiin waxay diyaarisay diyaargarowgii dadku ay bixi lahaayeen iyo qaab socodkoodii ay u diyaarisay. waxaa la diyaarshay gaadiidkii dadku ay raaci lahaayeen oo 100 gaari ku dhow. waxaa la diyaarshay gaadiidkii raashinka u qaadi lahaa oo ilaa 27 ilaa 25 gaari u dhaxeeya. waxaa la diyaarshay fariiqyadii ama kooxihii caafimaadka oo 14 gaari oo 14 goobood maanta loo kala diyaariyay. maanta 4 goobood ayaa loo baxayaa. 4 goobood ee loo baxayo dhaqaatiirtooda oo diyaar. waxaa loo diyaarshay ciidankii oo mataqaanaa amnigooda iyo kaxayntooda iyo galbintooda ka qayb qaadanaya. waxaa loo diyaarshay 30 booyadood oo la rabo inay raacaan inta ay meesha degayaan biyahana ay ka cabaan. waxaa loo diyaarshay maamulkii oo ka horeeya iyo maamulkii oo halkana ka raacaya ayaa loo diyaarshay. waxaa loo diyaarshay tawciyadii iyo wacyigelintii iyo qaybtii calaamka ama maartay wariyaashii oo arkaysaan wararka sida tooska ay ugu soo gudbinayaan. aagga la kala aadaya waxay noqonayaan 4 aag ayaa hadda loo kala kacayaa ama 4 deegaan. deegaanka koowaad Oflow ayuu noqonayaa. deegaanka labaad Qasax Dheere tuulooyin ku beegan agagaarkeeda. deegaanka labaad Xagarka. deegaanka saddexaadna mataqaanaa waxa weeye waa Kobanka. dadka dhammaantoodna waxay u diyaar yihiin inay camalkii insha Allah ay u laabtaan ayna beertaan. anaga waxaan kale u diyaarinay deegaanka ay ku laabanayaan qaabkii beertu ay ugu hagaagi lahayd. hadda waxaan siinaynaa kaararkii hore ka duwan ay haysteen oo xarakadu ay soo diyaarisay oo waxa weeye raashinka ay ku qaadan doonaan. mar labaadka markii meeshooda degaan waxaa la siin doonaa muddo bila ama maartay raashinkii ay qaadan lahaayeen oo 25 kiilo bariis ah, 25 kiilo oo bura, 2 caagadood oo saliida maartay maxay ka kooban. waxaa kaloo la socda dhaqaatiirtii iyo biyihii iyo ciidankii amniga ayaa la socda. 20 bari kadib waxaa loo diyaarinayaa kaarar kaleeto oo kaarka rasmiga ay qaadanayaan. aagga ay tagaan dadka masaakiinta iyo dadka ducafada jooga si aanay maartay maxay ahayd dadkan hadda soo barakacay dib loo ceshay aanay culays ugu saarin raashinka ay qaateen. waxaan u diyaarinay kaarar khaas oo 22,000 oo kaard baan diyaarinay aagga oo dhan lagu qaybinayo insha Allah oo dadka wax culays lama saari doono. waxaa la diyaarinay 3 bilood soo socota waxa allaala wixii raashin ay qaadan lahaayeen oo isticmaali lahaayeen oo inta hadda aan sheegnay ka kooban waa loogu talagalay. sidoo kale mid ka mid ah barakacyaasha maanta dib loogu celinayo deegaanadooda ayaa saxaafadda uga warbixiyey dareenkiisa. geeki saxurtay eedan kaasanta an faylata alxamdulillah muslimiinta iyo maragta maxdalin baan ku nagaana uu masaakinti an ilaahay dartiis markii intu koona walna nago hay kaalika anna nagu farxasna. hawsha la xiriira dib u celinta barakacyaasha ee maanta ka bilowatay magaalada Baydhabo waxaa ka faa'iideystay barakacyaal oo tiradoodu gaarayso ilaa 6500 qoys oo loo kala rarayo tuulooyinka kala ah Xagarka, Kawan iyo Oflow oo hoos tagta degmada Qasax Dheere ee gobolka Baay. si kastaba ahaatee arrintan ayaa waxay ku soo dhigantay xilli la filayay roobkii deerta ah wax la tacban lahaa. Cabdiqaadir Xasan Ibraahim, telefishinka caalamiga Soomaali Sat TV ee magaalada Baydhabo.